goobaha ay ka bilaabantay diiwaan gelintu. hadallo ay halkaasi ka soo jeediyeen mas'uuliyiintu waxay u soo jeediyeen dadweynaha ku dhaqan gobolka Saaxil in ay isdiiwaan geliyaan isla markaana ay qaataan kaarka calaamadda oo ah dadka u dhashay dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar, gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Baasha Cabdilaahi Yacquub iyo xogayaha dowladda hoose iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee Berbera iyagu halkaasi ka hadlay hadalladoodii waxaa ka mid ahaa maanta oo ay taariikhdu tahay 12 waxa guul ah haddaan nahay gobolka Saaxil degmada Berbera in maanta ay noo bilaabato diiwaan gelintii kana bilaabato degmada Berbera iyo degmada Sheekhba guud ahaan ay ka bilaabato gobolka waxaan ilaahay ka rajeynayaa binilaahi kariim inay noo noqoto mid sida loogu talagalay u socota waxaan magaalada Berbera gudaheeda ka bilaabanaya diiwaan gelintii khaasatan magaalada Berbera dhammaantood ay si mug leh uga qayb qaadan doonaan inay iska calaamadiyaan oo ay summadda Somaliland-darnimada ay qaataan si ay uga socnaadaan dadyoga kale ee soo galootiga Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo xildhibaanadii iyo xogayihii oo arkay saro safan inay ku horeeyay isdiiwaan geli ay noqdaan dadka reer Saaxil iyo deegaanka waxaan kula talinayaa waa sumad geel baa sumad lagu dhigay iswa sumadeena suntaan waxaan cod dheer mar labaad ugu dirayaa bulshada gobolka Saaxil iyo degmada Berbera ee soo dooratayba inaan maanta diyaar u nahay gobolka goobta ay joogaan lagu gaarsiinaya qalab iyo gaadiid iyo wacyigelin iyo shaqaale hufan oo dhalinyaradii degmadaaba muwaadiniin waxaan idin ka codsanaynaa inay isdiiwaan gelisaan oo ka duwanaataan nasiib anigu ayaan u yeeshay anigoo odayaasha Berbera inaan maanta halkan iska diiwaan geliyo dadka u horeeyana noqdo waxaan leeyahay ku soo dhawaada oo ka meel durugsan joogo soo dhaadhac Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Somaliland